السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii aalaab aynu kaga hadli jirnay isbarbardhigga awoodda militariga ee caalamka. Maanta waxaynu barnaamijkeena isku barbardhigi doonaa awoodda militari ee wadamada Mareykanka iyo Jamhuuriyadda dalka Iran. Ciidamada qalabka sida ee dalka Mareykanka waa kuwo leh awood la taaban karo oo dhanka difaaca iyo saameynta qalabka awoodda dhaliya, iyadoo ay ugu wacan tahay in ay ku bixiyaan dhaqaalaha ugu badan ee ciidan lagu bixiyo. Waxayna adduunka ku leeyihiin 800 oo xarumood oo ciidan oo ka baxsan dalka Mareykanka. Sidoo kalena waxay awood u leeyihiin ciidamada Mareykanku inay madaxyadooda nuclear geeyaan meelo ka baxsan dalka Mareykanka oo adduunka ah. Jamhuuriyadda Shiicada ee dalka Iran ayaa ka mid ah wadamada ugu awoodda badan adduunka, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Islaamka. haatan oo la joogo ciidamada la heli kara dalka Mareykanka ayaa lagu qiyaasaa 1.3 milyan, taasoo ka dhigaysa inay yihiin ciidanka saddexaad ee ugu tirada badan adduunka marka laga soo tago wadamada China iyo Hindiya oo ku kala jira kaalinta labaad iyo kaalinta koowaad. Iran ayaa iyaduna ah quwad kale oo ciidan oo ka jirta adduunka, waxayna haysataa 523,000 oo askari. Ciidamada kaydka ee labada dal ayaa kala ah Mareykanka ayaa haysta ciidan kayd ah oo gaaraya 811,000 oo askari, halka Iran ay iyaduna haysato ciidan gaaraya 350,000 oo askari. miisaaniyadda ku baxda labada dal ee difaaca militariga, dowladda Mareykanka ayaa ku bixisa miisaaniyad sanadeed dhaqaale ciidankeeda Mareykanka oo dhan 686 bilyan oo dollar, taasoo la micno noqonaysa inay ka badan yihiin dakhliga ciidanka Mareykanka lagu bixiyo 10 wadan oo ugu horeeya caalamka dakhliga ay ku bixiyaan ciidamadooda. Halka Jamhuuriyadda Iran miisaaniyad sanadeedka ciidankeeda ku baxa uu yahay 19.6 bilyan oo dollar oo kaliya. Awoodda hubka iyo tirada labada wadan ay kala haystaan. Ciidamada Mareykanka ee qalabka sida ayaa haysta ku dhawaad 8,000 oo taangiyada dhulka ah, kuwaas oo loo yaqaano Abraham, halka dowladda Iran iyaduna ay leedahay ku dhawaad 1,000 taangi, iyadoo ay ku jiraan taangiyadaasi kuwa casri ah oo la kala yiraahdo T-72 iyo M60 Patton. asal ahaan taangiyada Iran ayaa laga keenay taangigooda caanka ah ee Zolfak. gawaarida gaashaaman ee labada dal ayaa kala ah Mareykanka ayaa haysta 40,000 oo gaari oo gaashaaman, halka Iran iyaduna ay haysato 1,300 oo gaari oo gaashaaman. Ciidamada Mareykanka ayaa ku qalabaysan in ka badan 14,000 oo diyaaradood. Ciidamada Iran ayaa iyaguna sidoo kale ku qalabaysan in ka badan 850 diyaaradood. labada dal diyaaradaha sida gaarka ah u isticmaalaan ciidamada Mareykanka ayaa isticmaala diyaaradaha iyagu gaar u leeyihiin ee la kala yiraahdo F-16, F-15 Street Fighter iyo F-22 Raptor iyo F-35. ciidamada Iran ayaa iyaguna isticmaala kuwa ka duwan kuwa Mareykanka oo la kala yiraahdo 29 F-14 Tomcat Mirage F-1. ciidamada badda Mareykanka ayaa ah kuwa adduunka ugu awoodda weyn marka la fiiriyo xagga culayska iyo xajmigooda. labada ciidan ee la kala yiraahdo US Navy iyo US Marine, labadan ciidan ayaa isku darkoodu ka dhigaya inay yihiin ciidanka ugu awoodda badan badda ee isticmaala diyaaradaha dagaalka, tiradooduna gaarayso in ka badan 4,200 oo diyaaradood. diyaaradaha hawada sare ee sida gaarka ah u isticmaalaan ciidamada Mareykanka ayaa ah F-30 Lightning, F-35 Lightning II iyo F-18 Hornet. Iran ayaa iyaduna isticmaasha diyaarado helicopter ah oo u gaar ah iyo kuwa xamuulka qaada. ciidamada badda Mareykanka ayaa iyaguna isticmaala 11 maraakiib oo ku qalabaysan saanada nuclear-ka iyo 9 maraakiibta helicopterada qaada, 66 maraakiibta ilaalada badda ah iyo 22 maraakiibta gantaalaha hawada ah wax ka difaaca qaada. in ka badan 70 guujis ee kuwa badda quuso oo nuclear-ka ku qalabaysan iyo 9 maraakiibta yaryar ee dagaalka, iyadoo tiro kale oo maraakiibana ay ku qaybsan yihiin rondada badda. halka Iran ay leedahay 9 markab oo yaryar oo dagaal iyo 30 guujis oo iyaguna badda iyo tiro kale oo badan oo maraakiibta rondada iyaguna ku qaybsan oo ilaaliya badda dalka Iran. waa hagaag daawadayaal, waa naga intaas warbixintii aan isku barbardhigaynay ciidamada dalka Mareykanka iyo kuwa Iran. haddii haddaba aadan la socon channelkan Dawan Films, nagu soo biir. nabadii iyo nolol kulan.